السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وعنا ونكسن الهانتين بقى كسر دواء W3 tag فيديو حكوا سابسين فيديو يعني HTML iyo CSS iyo JavaScript maadaama aan koorso ku saabsan web development aan bilaabana insha Allah waxaan ka bixin doonaa sharaxaad guud HTML CSS iyo JavaScript inteenan bilaabin isticmaalkooda oo si live ah inaan coding-kii inaan u bilaabin waxaan si guud u sharaxi doonaa HTML iyo CSS iyo JavaScript really videogani waa muhiim inaad fahanto waayo wuxuu ku fududeynaya hadhow inaad fahanto saddexduba isticmaalkooda marka insha Allah waa video kooban si detail uga hadli doono laakiin saddexda mid walba waxaan ka hadli doonaa shaqadiisa muxuu website-ka u qabtaa muxuu website-ka u qaabilsan yahay hadhowna waxay ka caawin doontaa inaad isticmaalkooda aad fahanto tusaale ahaan businesskaaga ama companygaaga ama meheradaada dadka ka shaqeeya qof walba magac iyo title buu leeyahay qof walba shaqo gaar u qabtaa marka aad rabto inaad adeejiso ama aad shaqo u dirto mid walba waxaad u diraysaa shaqadii uu qaabilsanaa ee loogu talagalay maadaama aad ogtahay mid walba shaqada uu qabto way ku fududahay inaad adeejiso oo mid walba aad shaqadii loogu talagalay aad u dirto sidaas si la mid ah website-ka HTML iyo JavaScript iyo CSS markaad ogtahay ama aad fahansan tahay mid walba shaqada uu qaabilsan yahay ama website-ka uu qabto hadhow isticmaalkooda ayaa ku fududaanaya marka that's why aanu idin leeyahay videogan waa muhiim inaanu sharaxno mid walba shaqada uu website-ka uu qabto aan ku bilaabno HTML HTML maxay tahay baahida keenaysa in website-ka loo isticmaalo ama muhiimadeedu maxay tahay magac ahaan ku dheeraan meeno HTML waa afar kelmadood waa HTML labada hore way israacsan yihiin waa hypertext labada kalena waa markup language marka insha Allah markaynu bilowno HTML-ka isticmaalkiisa oo video ku xiga si fiican u fahmi doontaa marka sharaxadooda ma sharxi doona laakiin shaqada ay qabateen uu sharxi doona insha Allah HTML website-ka markaad ku fikirtay inaad website sameyso HTML waa waxyaabo ugu horeeya ku hor imanaya oo loo baahan yahay markiiba inaad ku fikirto marka waxaan isticmaali doonaa tusaalayaal daily life-ka nolosha caadiga aad fahmaysaan oo taqaanaan nidhaahna website-ku haddii uu ahaan lahaa guri cusub oo la dhisayo HTML-ku waxay u noqon lahayd guriga ninka guriga foreman-ka loo yaqaano ee guriga naqshadiisa dejiya ee naqshadeeya ee yidhaahda halkaas gurigu intaasoo qol buu ka koobnaanayaa halkaa 2 qol baa ka soo jeesanaya halka kale 2 qol albaabku halkaas ku beegmaya daaqaduhu halkaas ku beegmayaan ninka sida guriga u naqshadeynaya haddii website-ku guri ahaan lahaa HTML booskaasoo kale ugu jiri lahayd waayo website-ka marka la dhisayo waxa habeeya oo basekiisa iyo asaaskiisa lagu dhisaa HTML baa kala habeeyso kala xidhxidha oo qaabaysa website-ka dhismiisa tusaale labaad website-ku hadduu ahaan lahaa guri cusub oo la dhisayo HTML waxay u noqon lahayd shaqaalaha dhisaya guriga seeskiisa iyo asaaskiisa dhigaya ama ka dhamaystiray jaajuurka koobaad ilaa guriga inta laga dhamaystirayo oo ilaa jingada laga saarayo ee guriga muuqaal ahaan la dhamaystirayo guriga hadduu website oo ahaan lahaa HTML waxay ugu jiri lahayd booska qofka shaqaalaha guriga basekiisa iyo asaaskiisa iyo jaajuurka baseska dhiga marka la dhamaystiro oo basekiisa la dhigo seeski la dhigo ee guriga la taaga jaajuurkiisi ilaa roofkii iyo jingadii la saaro ee guriga uu yahay guri dhamaystiran lagu noolaan karo stepka marka la gaaro wax kala loo baahanaya marka website-ku markuu halka marayo HTML lagu dhiso ee lagu qaabeeyo HTML oo kaliya waa lagu dhisi karaa website-ka laakiin marka la dhamaystiro website-kii HTML lagu dhiso ee lagu naqshadeeyo lagu qaabeeyo soomaaliya guriga ku noqono guriga marka la dhameeyo waxa loo baahdaa guriga asoo dhameystiran oo lagu noolaan karo haddana waxa soo baxda bini aadanka dooqiisa kala duwana waxa laga yaabaa marwada guriga inay jeclaato guriga 2 qol bink laga dhigo ama guriga wajahadiisa banaanka rinji gaar laga dhigo oo guriga la qurxiyo marka waxa loo baahdaa ninka painter guriga rinjiyeeya ee guriga rinjiga mariya
ama guriga xardha marka haddii guriga uu website-ku guri ahaan lahaa CSS waa talabaad CSS waxay uga dhignaan lahayd website-ka ama guriga ugu jirtaa booskii ninka rinjiga marinaya guriga CSS-na waxay la shaqeysaa HTML CSS waxay qurxisaa HTML website-ka marka la dhiso waa aragteen website-yada marka gashaan waxa laga yaabaa kor in midaba uu leeyahay kala gaara hoos inuu midaba gaara leeyahay farta qaybta sare ku jirta inay midab gaara tahay macasaan tahay ama green ama blue dhinacyada kale farta ku jirta inay midaba kala gaara leedahay waxa ka masuula qurxintaas iyo kalarada website-yada ku aragteen CSS ka CSS haddii website-ku guri ahaan lahaa waxay uga dhignaan lahayd shaqaalaha guriga rinjiga mariya ee qurxiya rinjiyada kala duwan ee isha bini'aadanka soo jiidanaya ku rinjiyeeya marka website-ka haddii HTML kaligeed lagu dhiso oo berigii hore taariikhda hore horumarka imka la sameeyay technology-gu ay gaadhay CSS aanay jiri lahayn HTML oo kali haddii website-ka lagu sameeyo wuxuu noqon lahaa sidii sawir black and white oo kale ah oo aan isha u rooneen website-yadii hore oolka ahaa sida Yahoo oo kale haddii imka leh aad eegtaan waxa lagu sameeyay HTML marka qurux badan iyo kalaro badan kama muuqato HTML waxaan nidhi waa ninka guriga naqshadeeya ama beeskiisa dhagaxiisa asaaskiisa jaajuurkiisa dhiga CSS-na waxaan nidhi waa ninka guriga rinjiyeeya ee painter-ka ah marka waxaan malaynayaa markaad tusaalayaashaas ay niyadaada kusoo dhacaan HTML iyo CSS mid walba macnihiisa ama wuxuu qabto horaad ka fahmi kartaa waxaa inoo dhiman JavaScript gurigii markii la dhisay seeskiisii iyo asaaskiisii iyo gurigii oo dhan la qaabeeyay la dhisay rinjiilihii loo yeedhay ninkii painter-ka ahaa ee gurigii uu rinjiyey uu qurxiyey guriga waa lagu noolaan karaa website-kana waa sidaas oo kale HTML baa lagu qaabeeyey CSS baa qurxisay laakiin weli website-kii xarakaad iyo dhaqdhaqaaq ma sameynayo Google markaad gasho aad wax qorto search aad tiraahdo wuxuu sameynaya xarakaad meel kale ku geenaya website-dada hadda aragteen animation-ka waxyaabaha dhaqdhaqaaqaya iyo nolosha website-ka ka muuqata waxaa ka mas'uulka ah JavaScript tusaale hore ku socono haddii website-ku guri ahaan lahaa JavaScript waxay ugu jiri lahayd booska qofka shaqaalaha ah ama ninka electrician-ka ah ee guriga soo geliya light-ka iyo korontada guriga isagoo dhammaystiran oo lagu noolaan karo haddana korontada marka la soo geliyo guriga waxaa ka dhalanaysa nolol cusub iyo dhaqdhaqaaq iyo xarakaad light-ka marka la soo geliyo waxaa loo sameynayaa switch oo on and off marka guriga dhaqdhaqaaq buu yeelanayaa korontada waa la deminaya light-kii marna waa la daarayaa marka website-kana dhaqdhaqaaqa aad ku aragteen website-yada website-ku uu sameynayo markaad meel ku dhufato meel kale uu ku geenayo ama animation-ka waxa mas'uulka ah JavaScript tusaale labaad oo JavaScript ah JavaScript waxa kale guriga uu website-ku guri ahaan lahaa ugu jiri lahayd booska ninka plumber-ka ah مثلا ama biyaha guriga gelinaya qasabada biyaha la furayo mar la xirayo ama ninka plumber-ka gelinaya guriga suuliga ama musqusha flashka la flashayo marka JavaScript waxay uga dhigan tahay ninka guriga ama korontada gelinaya ama biyaha ama suuliga iyo flashka gelinaya gurigii sababaya in guriga xarakaad iyo dhaqdhaqaaq uu sameeyo marka JavaScript-na shaqada website-ka uu qabataa waa taas insha Allah waa fiidowga yar kooban waxaan rabay inaan idin fahansiiyo saddexdaasi mid walba shaqada uu website-ka uu qabto si hadhow ay idinku fududaato in mid walba aad garan karto shaqada ay qabato marka insha Allah waxa ku xigi doona bilaabi doona HTML oo toos u isticmaali doono oo aynu ku dhisi doono website-keena ugu horeeyay ama aynu idhaahno gurigeena ugu horeeyay insha Allah waa guri la wada leeyahay guri aan la isku qabsan doonin weeye markaad barato adaa dhisan doona website-kaaga ku gaarka marka insha Allah next video waxaanu bilaabi doonaa HTML oo aynu code-ka aynu qori doono aynu website-ka bilaabi doonaa our first website aynu ku dhisi doono insha Allah video waxaan u malaynayaa inaad fahantay ujeedadan ka lahaa marka insha Allah waa inoo next video sii share gare insha Allah gaarsii dadka kale interest gareynaya hadii ay tahay markii koobaad ee aad videogan arkaysa ama channelkayga aad soo booqanayso insha Allah subscribe and comment and share and assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh